kulanti wacan oo wanaagsan dhammaan saaxiibada ku xiran janaalka daacadiyuub waxaan soo dhaweynayaa saaxiibada ku cusub janaalka oo inagu timid waayo arag media iyo saaxiibada kale ee ku cusub janaalka waxaan idin leeyahay gacmo furan ku soo dhawaada wax badan ayaan kala faa'iidi doonaa hadduu alla yiraahdo insha Allah waxaadna ku soo dhawaataan muuqaal cusub oo aynu kaga hadli doono qiso diini ah oo aad u xanuun badan dhacdayna xilligii rasuulka nabadgeliyo iyo naxariis korkiisa ahaatee mudanna in lagu cibro qaato inta aynu gudagalin muuqaalkan waxaynu kaa codsanaynaa haddii ay tahay markii kugu horreysay aad soo booqato inaad subscribe saarto gambalelkana aad furato si aad u noqoto daawadaha ugu horeeya ee hela muuqaalada aan soo gelino halkan sidoo kalena aad laagta inagu dhiirigeliso muuqaalkana aad la wadaagto asxaabtaada dhanka iyo commentigana waa xaggiina una soo dhawaada muuqaalka oo dhammaystiran xilligii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxaa jiray wiil dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Alqama wuxuu ahaa mid aad ugu dadaala daacad Ilaahay salaada soonka iyo sadaqada maalmaha kamid ah ayuu xanuunsaday waxa aad ugu adkaatay xanuunkii xaaskiisa ayaa waxay u tagtay rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee waxayna ku tiri rasuulkii Allah ninkeyga Alqama wuu xanuunsan yahay waxaan doonayay inaan xaalkiisa ku ogeysiyo rasuulkii Allah rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu u diray Amaar Suhayb iyo Bilaal wuxuuna ku yiri u taga oo shahaadada u qabta way aadeen guriga ayayna u galeen waxay arkeen isaga oo harjada oo ay naftu dhibayso waxayna u meeriyeen tawxiidka laa ilaaha illa Allah arabkiisu ma awoodin in uu dhaho waxayna adeeg u direen rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee iyaga oo sheegaya in uusan arabkiisa karin shahaadada wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee labadiisu waalid mid ma nool yahay waxay dhaheen rasuulkii Allah hooyo da ah ayaa dhashay kolkaas ayuu rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee yiri hooyadaha lagu yeero kuna dhaha haddaad u tagi karto rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ayaa kuu baahan haddii kale gurigaaga joog ilaa uu kaaga yimaado way u tageen hooyadii waxayna u sheegeen akhbaartii rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee waxayna tiri naftayda naftiisa waan ku furanayaa aniga mudan inaan u tago rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee way coskatay oo waxa ay ku istaagtay ul waxay u timid rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wayna salaantay uuna ka qaaday salaanta wuxuu ku yiri hooyadii Alqama run ii sheeg haddaad been ii sheegtid waxyi baa alla xaggiisa iga imaan sidee ayuu ahaan jiray xaalkiisa wiilkaaga Alqama waxayna ku tiri rasuulkii Allah wuu salaad badnaa wuu soom badnaa wuuna sadaqa badnaa kadib rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu ku yiri xaalkaagu waa sidee adiga waxay tiri rasuulkii Allah waan ka careysanahay isaga kolkaas ayuu nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee ku yiri sabab waxayna tiri xaaskiisa buu dhankeeda u badnaa wuuna i caasin jiray rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu yiri carada hooyadiisa Alqama ayaa ka dabooshay arabkiisa shahaadada kadib waxa uu yiri Bilaal soco ii keen xaabo badan kolkaas ayay tiri hooyada Alqama rasuulkii Allah maxaad ku sameynaysaa xaabada wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee hortaada ayaan ku gubayaa waxay tiri rasuulkii Allah qalbigayga ma awoodo in aad wiilkayga dab ku gubto aniga hortayda wuxuu yiri rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee hooyadii Alqamay cadaabta Allah ayaa ka daran haddaad rabtid inuu Ilaahay ka raali noqdo adiga raali ka noqo ilaahaygi naftayda ay gacantiisa ku jirtaan ku dhaartay waxba tari mayso salaadiisa soonkiisa iyo sadaqadiisa haddii aad adiga ka careysan tahay waxay tiri ummu Alqama rasuulkii Allah waxa marag ka ahay ilaahaygi sareeyay malaa'igtiisa iyo muslimiinta waxa jooga halkan inaan raali ka ahay wiilkayga Alqama intaas kadib rasuulka nabadgelyo naxariis korkiisa ha ahaatee wuxuu yiri Bilaal u tag oo soo fiir inuu awoodo shahaadada iyo in kale waxa suuragal ah inay hooyada Alqama ku hadashay qalbigeeda waxaan jiray oo ay iga xishootay aniga Bilaal uu u tagay wuxuuna maqlay Alqama oo ku dhawaaqay tawxiidka laa ilaaha illa Allah Bilaal ayaa soo laabtay wuxuuna yiri carada hooyadiisa ay ka carootay ayaa carabkiisa u diiday inuu ashahaato raali markay ka noqotayna waa kaas dhahay intaas kadibna wuu dhintay isla maalinkii waxaa yimid nabiga nabadgelyo naxariis korkiisa ahaatee wuxuu amray in la dhaqo oo la karfano kadib wuu ku tugtay wuuna ka qaybgalay aaskiisa kadib buu yiri qabrigiisa agtiisa isaga oo taagan muhaajiriin iyo ansaaray qofkii xaaskiisa ka weyneeya hooyadiisa
waxaa korkiisa ahaatay nacaladii ilaahay iyo tan malaa'igta iyo tan dadka dhammaan. ilaahay ka aqbali maayo wax yar oo wanaag ah ilaa u tooba keeno Allah subxaanahu wa tacaala oo u samafalo hooyadiisa uu dalbado raalli ahaanshaheeda. ilaahay raalli ahaanshihiisa waa inay raalli kaa tahay, caradiisana waa caradeeda. wabilaahi towfiiq. qisadayna halkaas ayay inoogu eg tahay. allow hooyo adduun iyo aakhiraba dembigeeda dhaaf. taasi ayay inoogu eg tahay warbixintii ayna idinku talagalay. muuqaalkiisa xiga inta aan ku kulmi doono waxaan idin leeyahay sidaas iyo amaano Allah. hana ka iloowina channelkan inaad saartaan subscribe, gambaleelkana aad furataan, like-tana aad inoogu dhiirigelisaan, muuqaalkana aad asxaabtiina la wadaagtaan. sidoo kale wixii fikrad aad inoo haysana aad inoogu reebto dhanka hoose ee commentiga.